xaqiijinayaa dowladda Itoobiya iyo Eritrea isla jira cod buuxa Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku dhaheen wax xiriirna ma dhaxmari karna mana wala shaqaysanayna inta ay kula joogaan Mahad Salaad iyo ninkaado Xuseen haday inta kula joogaan afcad buu abiin ku yiri maantana waa lagu yiri xogta saxda oo helay waliba dhanka Itoobiya iga soo gaarayso marka haday go'aan ku qaad doona say u taalaa Xasan Sheekh Maxamuud runtii waa loo sheegay laakiin anigu waxaan aaminsanahay su'aalan ku raaciye نيو حسن شيخ محمود لفتيس داعات كما ها عيدن كان وايو عيدن وشيل sidoo aan u karbaashay oo wax ogaan ku sameynay inuu hadda wanaag ugu tagay uma leen mahayo waa sida rag horreeyay ay sheegeen oo in sarcad buu wadaa tigitaanka Kenya iyo wuxuu Kenya u sameeyay lahay buu ku xalaalaysanaya marka shacabka Soomaaliyeed buu xogaha khaldaya marka ma laga yaabaa niyow in asaga laftiisa sirtii ay regalbeedka iyo Kenya iyo waxa ay wataan dabadhilifkoodii sahan group ay ka raadinayaan ciidanka inuu si toos u raadinayo hadda in madaxweynuhu ay xogta u helayaa uu dhiibi doono ma laga yaabaa xogtaas balse kula taarinta qiyaano qaran oo anaga nagu sameynayo oo na tusayo inuu maaragtay siyaasadii oo farmaajo oo ilaa xad sii wadayo oo dadkii asxaabteena ahaa oo xiriirinayo laakiin waxa ku xigi doonta in jaadka la fasaxo iyo markuu soo noqdo maalmo kadib inuu Kenya ka dego oo Uhuru iyo asiga ay is salaamaan ayaa ka dhici doonta sababtoo ah haddii taasi dhici lahayn wuxuu wax ka dhihi lahaa dhibaatooyinka maalin walba ka taagan jubbooyinka iyo gedo oo duqeymaha oo masaakiinta iyo xoolaha la duqeynayo wuxuu ka hadli lahaa sharaf dhici oo nagu sameeyay bil ka hor adiga bil barka hor beena umaleena marka oo u yeeray safaaradaha oo maarta martiqaadka uu sameeyay oo calanka Soomaaliland meesha la soo istaajiyay waxa soo dhan oo ka hadli lahaa marka aniga ma aaminsani inuu ninkan siyaasadiisa isbedeshay raggi keensaday ayaana meesha ku haya kuna haysan doona safarkiisa ku xigana Kenya noqon doona runtina ciidamada dhalinyarada ahna muruga weyn ayaa caaw iga haysata oo runtii oo idhiisa ku soo arkay wallahi waan ilmeeyay farabadnidood ma noloshayda ciidan inta la eg ee film laga qaaday ma arkin ciidan inta la eg ee barxad inta la isugu keenay dhalinyaro ah oo film inta laga qaaday noloshayda ma arkin Eritrea horta ciidamadan hadda waxa weey qaarna Eritrea quseeya qaarna wuxuu quseeyaa Soomaalidu quseeya Eritrea waxa quseeya logisticski diyaaradihii lagu daabuli lahaa oo Soomaaliya lagu geyn lahaa waxa weey Eritrea waajib ka saaran oo sababtoo ah maadaama iyadu keentay inay Soomaaliya ku soo celiso waxa weey waajib ka saaran dhul lama soo marsin karo Soomaaliya Itoobiya xuduud male wallahi wadamo badan oo maaragtay haastal ku ah Soomaaliya iyo maaragtay ama dhul Soomaaliya kamid ah oo haastal ah maaragtay ka xiga maaragtay xamar meesha ugu laajigsan oo ugu haboon oo hadii ay soo laabtaan keenayana waxa weey waa magaalada Muqdisho weeye iyo maaragtay xiriir badan oo waxa jira ama kuliyadii ciidamada Soomaaliya u lahan jireen agagaarka magaalada xamar qofkan iyo miyud gal maxamedow baajira oo maaragtay la keeni karo maaragtay oo ay iman karaan midda ah maaragtay mushaharadoodii iyo maaragtay daryeelkoodii iyo maaragtay wixii ay u baahan yihiin iyo taas Eritrea uma taalo Xasan iyo waxa u taalaa groupkiisa u taalaa hadii aad aragtaan budgetka hadii aad fiirisaan oo ayaantii dhaweyto beyle iyo maaragtay laga qeyrsiinayay oo qoliyaha baarlamaanka shaqaay ay la boodboodayeen waa la dhimay mushaharada ciidamada saad aad u xasuusataan dokumentiga fiiriya mushaharada qofka askariga ah uu qaadanayo waa la dhimay $700 bay ahaan jirtay hadda sida uu yahay projectionku ama qorshaha lagu socdo waxa weey hoos baa loo dhimay maxaa la badiyay waxa la badiyay dakhliga madaxtooyada 6 milyan buu ahaan jiray 19 baa laga dhigay 20 milyan oo kale toba maaragtay sanadkii la gaarsiiyay I don't know waxay maaragtay ku sameynayaan iyo maaragtay waxay soo kordhinayaan iyo waxa ay bedelayaan iyo waxa ay Soomaalidu ugu qabanayaan kulli anigu ma garanayo maantadan waxaan dhahlahay nin ay maaragtay xabsiis u dhow yihiin oo yiriniyo anigu wax maaragtay akhbaar oo hoose oo aan maaragtay aan ka hayo ma jirto laakiin waxa aan la hadlay buu yiri oo maaragtay aan la hadlay niman dhalinyaro ah oo saraakiil ah
oo aan ilma adeernahay oo maaragtay ciidamada Soomaaliya ku jira baan la hadlay aad bay walwalsan yihiin oo maaragtay laakiin hadda waxa weeye kaliya ay isku ma weelinayaan waxa weeye wait and see waxa la yiraahdo waxay leeyihiin bal u kaadiya maxaan dhahay arrintu waxa weeye waa cusub tahay naloo koodo wuxuu ka walwalayaa nin haddaad tahay nin sargaal ah oo ama hurin ama urur ama maaragtay guuta xukuma oo maaragtay hormuud u ah ragga aad maaragtay madaxda u tahay oo aad maaragtay hogaaminaysid oo dagaal ku hogaaminaysid adiga ka mas'uul ah waxay cunayaan waxay cabayaan wixii maarkinino hadday dhaawacmaan meesha lagu daaweynayo maaragtay naar on iyaga kaliya maahane reerahooda iyo caruurtooda iyo dadkooda baa mas'uuliyad ka saaran tahay marka saraakiisha Soomaaliya hadda aad iyo aad bay walwalsan yihiin waxay ka walwalsan yihiin ma heli doonaan maaragtay mushaaro maaragtay maxaan idhahdaa ma heli doonaan maaragtay daryeel caafimaad mushaarada markii laga tago waxaa la siiyaa ciidamada Soomaalida gunno raashin ayaa la siiyaa oo maaragtay oo ay reerahoodii maaragtay ay lagu biiro oo maaragtay lagu kordhiyo taas aad iyo aad lagu walwalsan yahay maaragtay in durbaba la iibsaday badankeeda baa ilaa 6 bilood oo kaleeto baa la sii hormariyaa maaragtay meelaha qaarkood oo maaragtay la sii bixiyaa aad ayaa loogu walwalsan yahay arrintaas xogahaasna waxaa laga helayaa saraakiil xoogga dalka Soomaaliya ayaa laga helayaa maaragtay dareenkaas ayaa laga helayaa marka walaalle su'aashaada maxaa xigi doona waxa xigi doona in laga shaqeeyo logisticskii ma rabto maaragtay 5,000 oo nin oo askari Eritrea waa wadan maaragtay aad garanaysaan waa wadan dagaal badan ku socdo dad badan baa maaragtay la dirirsan wadan dhaqaale weyn iyo maaragtay ayamahan inay tababarka koobaad ay siiyaan 5,000 oo nin oo askari baa waxa ay tahay abaal weyn iyo maaragtay dadaal badan oo ay Soomaali u galeen baa tahay tababarkii hadduu u dhamaadayna in culays loogu sii daro inay sii joogaan oo maaragtay ay sii daryeelaan waxa weeye mid qabata maahan Eritrea mid qabata maahan marka talaabada koowaad waxa weeye in la helo logisticskii lagu qaadi lahaa markii Soomaaliya la geeyana sidii maaragtay loo daryeeli lahaa oo loo hawlgelin lahaa oo wadanka looga maaragtay looga faa'iideyn lahaa Soomaaliya u taala hadda Soomaaliyana waxa weeye waa midaas Xasan Sheekh iyo groupkiisa gacanta u gashay ka arintan ciidankeena ah gaarto ciidanku waa ciidan qaran maaha ciidan beeleed waa ciidan laga soo kaxeeyay 18 gobol ee dalka ciidan la degan saamaqlay marka ciidan haddii magaranaysaa madaxweyne Xasan Sheekh uu intuu dalka keeno caasimadda keeno uu magaranaysaa haddii abaalkooda iyo mushaharkooda uu siin waayo uu diri karo maaha ciidan intuu iska diro magaranaysaa ama haddii ay ay qalado iyo waxyaabo sameeyaan odayaashaas reer koonfureed uu diro dhaw wiilashina qabsada ama maxay yiraahdaa uu kala diro magaranaysaa meelaha baaga mudada maaha marka madaxweyne Xasan Sheekh ciidankan xujay ku tahay ama ciidankan si loo tababaray oo loo keenay ayuu ku faa'iideeyaa oo magaranaysaa geynaya meelihii looga baahnaa xuduudaha haato magaranaysaa shabaabta dhulkan yar ah haysato ama maxay dhahdaa hadda ciidankaas ciidan ku gadoodo oo magaranaysaa dib u geysta bay noqonayaan labada mid bay noqonayaan waxa ogtihiin in Soomaaliya xagga ciidanka laga dagaalamo marka dawladaha magaranaysaa reer Yurubku taladooda ay ku gacan jiraan ama danaha magaranaysaa wada leh Soomaaliya in ciidan مثل دور كونو كل هالمكي الله توبره ما سمين كرا ساسترادت مدحوني هوري فرماتشو وحسمي دولة مدرسة ساي توبره سعيدا في عن بس يوروب أنا حليل اللهين واتي سؤال أسنى جواب سدح نغنى إليتريا كهالمركلية شنكون والله ينوتو برهتها إنه ما فيلنا شنكون مدرسة ساي إليتريا هدي أنت مدحوني توبه مدرسة ساي في عن حليل أولا سميو لواتن كون يشان طبعا كون عيدا وأوتو بركران يعني أنا فايدة نوتا مركا إذا كان هذا محمد حسن الشيخ محمود مدعوينه إنه أما كفى عيده
ama magaranaysa ku khasaaro labada mid bay noqonaysaa xujo inay ku tahay baanu u arkaa waxa kaloo jira dee madaxweynuhu markuu saa u yimi maxaa idhahdaa wuxuu tegey qolyahan carabti u tegey 2 maalmood la joogayaa buu yiri may noqono 5 maalmood meelahaas la joogay kabacdi turku u tegey iyadana 3 maalmood la qorsho ahaa balse 5 maalmood meelahaas la joogay waxa halkaa ka muuqata in si fiican loo wada hadlay siyaasadda magaranaysa Turkida iyo siyaasaddan maxaa idhahdaa qolyahan bilashiisha Arab milkilaad la yiraahdo isu tagga Imaaraadka Israa'iil u dhow isku maaha siyaasad meeshana maxaa idhahdaa ay ku dagaalamayaan horeyna dalkani kaliya maaha Liibiya ku dagaalamaan waxay ku dagaalameen maxaa idhahdaa Yemen xagga magaranaysa Turkiga meeshiisa Iiraan baa fadhida balse xaggan magaranaysa Liibiya si way iska soo horjeedaan marka madaxweyne Xasan Sheikh hadda waxaa lagu yiri bay la tahay labadooda maxay dhacdaa gacan u taagaya waan la qoslaya hawshan waan la wadaya noqon mayso mid kala dooro tii marka adiga ku dana way caddahay oo magaranaysa danaha magaranaysa wadamada ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar iyo Turkiga waa dana guud oo magaranaysa isku wadada ay marayaan labadooda u fiican yaani Turkiga iyo Qatar dowladda Soomaaliyeed oo isu timi oo xoog weyn damba u jida siiba Turkiga wuxuu magaranaysa siyaasadiisa rabaa inuu magaranaysa dowlad weyn noqdo oo ummadda Islaamiyed maxay dhahdaa siyaasadeeda hagta dhaqaalihiisa magaranaysa ballaariyo ka future-ka wuxuu rajeynayaa dhaqaalaha Turkiga laga keeno inay magaranaysa soo maraan xagga Masar iyo Suez kabacdina xaggan magaranaysa de marinkan magaranaysa gacmeeda Djibouti marka dowlad Soomaaliyeed oo awood weyn oo xoog leh waxa magaranaysa ay future-ka ay ka caawinaysaa in hadda dhaqaalaha halka maraya xaggaasi aasi tagaya in magaranaysa ay ilaaliso iyaduna ka faa'iido magaranaysa inay ilaaliso marka siyaasaddu waa siyaasad weyn weeye dhinacan kalena dee inay halkaas burburiyaan oo sida tan hadda ay ka socoto Soomaaliya taasku iyadii magaranaysa isku dhex walaaqsan wax walbana magaranaysa dee ay iska socdaan meeshaas aan warka hayn dhinacan kalena danahooda waa saas ayro soo koobtad badan ku sugayay marka haddaan soo koobo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud maxay dhahdaa labada qolaba way la hadleen waxay dhaheen mid dooro marka madaxweynuhu magaranaysa iminka wadadii uu ku socdaa inuu labada qolo ku doortay oo ku adkaystayna waqtiga ayna tusi doona iminka talaabada uu qaaday qolyahan magaranaysa dantan inuu jiro Turkiga iyo Imaaraadka iyo magaranaysa dantan guud iyo siyaasadii hore farmaajo inuu ku socdo bay u egtahay hase yeeshee inuu taa ka leexan doono inuu magaranaysa dana kale ka leeyahay waqtiga ayna tusaya wax kasta waqtiga ayaa ka jawaaba marka insha Allah waqtigu jawaab khayr qabta oo aan rajeynayno oo anagu wadaniyiin baan nahay magaranaysa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay dhahdaa qabiil iyo magaranaysa walaaltinimada kuma taageersanin wadankaas aan jecelnahay magaranaysa baanu ka dhex aragnay siyaasadiisaas maxay dhahdaa badbaadadiisa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud hadduu wadada ku dhaqaaqo runtii aniga shakhsi ahaan waxa ugu ballamay iyo magaranaysa wadaniyiin badan ba inay gacanta geliyaan ka insha Allah waa soo gaabi waa dhameeyba waa mahadsantahay khayro asxaabay 2 minute haday u badato 3 yaana laga dheeraan isku daya inaad waqtiga ilaalisaan si dadka kalena loo siiyo u horeeya waxaa ku xiga Cali Maxamed waxaa ku xiga Safiirka kadibna Yuusuf waa mahadsantahay Xalimo aad iyo aad horta wax badan oo asxaabta la qabaa jira iga hadashay waxa la qabo waxa weeye cidda maanta doonaysa inay wax isbedel samayso oo horumar samayso oo dalkani dhibaatooyinka amni darrada iyo dhaqaale xumada iyo burburka iyo kala qaybsanaanta iyo qoqobka inay ka saarto cidda maanta danaynaysa maanta waxaan taaganahay meel muhiim ah ama buundo aad iyo aad muhiimad gaara u leh oo xilliyadii hore oo dhanna
aad iyo aad uga muhiimsan. markaan saa ini leeyahay waxaan taaganahay xilli dalku waxyaabo fara badan oo dhibaatooyin iyo hagardaamooyin ah ay ku jiri jiray oo kasoo kabanayo maanta 5 sano oo hadda aynu soo dhaafnay. waxa weeye waxaan u malaynayaa inaan haysano awood aynu ku caabin karno nimanka duurka ku jira, ciyaalka duurka ku jira. taasina waa barnaamijka farmaajo iyo tiimkiisii ay uga dhaga adeegeen kordhintii magaca AMISOM iyo nidaamkii ay ku shaqaynayeen oo loosoo baldaday ADMES. waxayna isku haleynayeen waxyaabo ay diyaariyeen oo ciidamadii iyo agabkii iyo saanadii iyo nidaamkii iyo qorshihii oo diyaarsan ayay isku haleynayeen. taasina waa midda ay markii ay go-aanka u gaareen in barnaamijkii AMISOM waqtigiisa lasoo gabagabeeyo. maanta xasan sheekh marka waxa weeye wuxuu haystaa fursad dahabi ah oo madaxweyne ka horeeyay ilaa iyo burburkii intii ka dambeysay madaxweyne ka horeeyay uusan helin. waxa uu haystaa ciidamo howlgeli kara, waxa uu haystaa dowlad diyaarsan oo nidaam iyo waxa weeye internationally loo diyaariyey, yani waxa la yiraahdaa international xiriirka caalamiga ah iyo nidaam wada saxan lagu soo riday. wadanka makaaniyaadkiisii ugu muhiimsanaa hadday tahay hawadii, hadday tahay ciidankiisii, waxyaabo fara badan oo dayacnaa oo maanta gacanta dowladda ku jira. intaas ayaa xasan sheekh haystaa. waxa uu cashar ka bartay wixii saaxiibadiisa ay dhegta ugu sheegayeen oo lahaa ciidamo la gatay, waxbaa la gatay, waxbaa la dhacayaa. casharo badan buu ka bartay.